بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد waxaan rabnaa maanta inaan meeshaan ku sharxno farqiga u dhexeeya cost and expense marka laga hadlayo business ujeedada ugu weyn oo businesska u jiro waxaa waaye inuu faa'iido sameeyo si uu businesska u sameeyo faa'iidadaas wuxuu u baahan yahay inuu lacaga bixiyo lacagaha uu businesska bixinayo si uu u sameeyo faa'iidadaas waxay noqon karaan lacag lagu magacaabayo cost ama expense noqon karaan waxaan rabnaa maanta inaan meeshaan ku fahanno farqiga u dhexeeya cost and expense maxay noqonayaan haddii aan ka bilaabno cost maxaa la dhahaa waxaan dhahna cost waxaa la dhahaa lacag walba uu kambaniga bixinayo si uu u helo shay kaleeto uu asiga markaas u baahan yahay mar walba oo aan lacag bixino sababta aan lacagtaas u bixinayna ay tahay inaan shay kale helno lacagta aan bixinay waxaa lagu magacaabi doonaa cost la dhihi doonaa sidoo kale cost waxaa la dhahaa lacag aan bixinayno sababta aan lacagtaas u bixinayna ay tahay inaan helno asset aan helno mar walba uu kambaniga bixiyo lacag sababta uu lacagtaas u bixiyana ay tahay inuu asset helo lacagta uu bixiyay waxaa lagu magacaabi doonaa cost la dhihi doonaa assetka uu kambaniga u baahan yahay waxay noqon karaan office supplies ay noqon karaan equipment ay noqon karaan waxay noqon karaan maxaa la dhahaye machine ay noqon karaan mar walba uu kambaniga u baahan yahay inuu soo iibsado asset lacagta uu bixinayo waxaa lagu magacaabi doonaa cost lagu magacaabi doonaa lacagtaas aan bixinayno oo lagu magacaabayo costiga waxay noqon doontaa one time payment one time payment waxaa laga wadaa mar walba oo aan soo iibsano asset lacagta aan bixinayno hal mar aan bixin doonaa assetkaasna weligiisa kambaniga lahaan doono micnaha waxaa waaye costiga ma noqon doono lacag aad mar walba bixin doontid hal mar aad bixin doontaa oo shayga aad kusoo iibsatayna forever kambaniga lahaan doono halka uu expensiga noqon doono lacag aad u bixin doono si joogto ah dhanka kaleeto marka laga hadlayo financial statementska waxaa isweydiinaynaa waxaa waaye costiga xaggee lagu qoraa saa ognahay financial statementska waxay noqon karaan balance sheet noqon karaa income statement noqon karaa cash flow statement noqon karaa owners equity statement noqon karaa marka laga hadlayo costiska intee lagu qoraa financial statementska intuu kaga qorma waxaan dhahaynaa waxaa waaye costiska waxaa lagu qoraa balance sheetka lagu qoraa okay wuxuu ka muuqanaa balance sheetka ka muuqanaa haddaan u galno expensiga waxaan dhahaynaa expense maxaa la dhahaa waxaan dhahaynaa expense waxaa la dhahaa cash aan bixinayno si aan u abuurno mise aan u sameyno revenue mar walba oo aan rabno inaan sameyno revenue lacagaha aan bixin doono waxay noqon doonaan expense mise si aan u fulino howl maalmeedka businesskeena lacagaha aan bixinayno waxay noqon doonaan expense marka laga hadlayo expenseska waxaa ka mid ah lacagaha aan ku bixin doono ijaarka meesha aan deganahay ijaarkooda lacagaha aan siin doono shaqaalaheena oo lagu magacaabi doono salary expense sidoo kale lacagaha aan ku bixin doono inaan sameyno xayeysiinta oo kaleeto waxaasoo dhan waxaa laisku dhahaa expense laisku dhahaa astaamaha lagu aqoonsan karo expenseska waxaa ka mid ah waxaa waaye they are constantly paid si joogto ah lacag loo bixin doono waaye lacag bil walba lagaa rabo inaad iska bixisid waaye expenseska ma ahan lacag hal mar aad bixinaysid oo kadibna aan wax kale lagaa rabin ma ahane expenseska waxaa waaye lacag aad si joogto ah u bixin doontid waaye oo bil walba lagaa rabi doono example oo kale rent expensiga markaad meel ijaaratid oo xafiis aad ijaaratid mise meesha businesska uu ku shaqayn lahaa ijaaratid lacagtaas ijaarka ah bil walba lagaa rabaa bishaan hadday dhamaato lacagtaas way bislaatay bisha kaleeto lacag kale lagaa rabaa bisha kale lacag kale lagaa rabaa waxaa waa lacag si joogto ah lagaaga rabi doono sidoo kale astaanta kale oo lagu aqoonsan karo expense waxaa ka mid ah they will become expire noqonayaan maxaa laga wadaa expire noqonayaan waxaa laga wadaa waxaa waaye lacagta expensiga ah haddii waqtigii loogu talagalay haddii la gaaro expire noqonaa wuu dhamaanaa lacag kale cusub lagaa rabaa example haddaa sheegayni oo kaleeto haddii aad degan tahay guri mise xafiis ijaar ah lacagtaas waxay ku egtaa halkaas bil hadduu dhamaado lacagtaas expire noqonaya bisha kaleeto lacag kale cusub lagaa rabaa marka waxaa waaye labada astaamood oo lagu aqoonsan karo expense waxaa waaye lacag si joogto ah lagaaga rabo waana lacag expire noqonayso
waayo halka markii laga hadlayo costiska aan dhahnay lacag one time payment lacaga hal mar bixinaysid waaye shayga asadka ah oo aan kusoo iibsanayna forever company-ga lahaan doono waaye ma ahan lacag si joogto ah lagaaga rabi doono inaad bixisid waaye haddaan u imaano financial statementska waxaa isweydiinaynaa waxaa waaye expenseska xagu ku qormaa waxaan dhehnaa waxaa waaye marka laga hadlaayo financial statementska expenseska waxay ku qormayaan income statementga ku qormayaan waaye conclusionka waxaan dhehnaa waxaa waaye costiska waxaa lagu qoraa balance sheetka halka expenseskana lagu qoro income statementga lagu qoro sidoo kaleeto farqiga weyn ee u dhexeeya costiga iyo expensiga waxaa ka mid ah costiga waxaa waaye one time payment waaye lacag aad hal mar bixinaysid waa asadka aad kusoo iibsatidna weligiis adigaa lahaan doono waaye halka expensiga markii laga hadlaayana ay tahay lacag aad si joogtaa u bixin doontid waana expire noqonaysa waaye. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.